waxaana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta dahsoon oo aynu ku soo qaadanayno qodobo ay ka mid yihiin milatariga Mareykanka oo ka dayriyay suurtagalnimada tallaal xilliga dhow loo sameeyo fayraska corona, shacabka Suudaan oo sameeyay isku tashi maxalli ah oo ay kaga hortagayaan fayraskaasi, iyo Shiinaha oo la sheegay inuu midab kala sooc ku sameeyay bukaankii corona ee Afrikaanka ahaa ee dalkiisa ku sugan. qodobo kale ayaa raaci doona. ku soo dhawaada barnaamijka. allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cadaabiye jannaalow cirdaroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risac cayimihiiyow cidduu raba u buuxshow calaacalaha taagnay caafimaad sareecana nagu caymi eebbow. culimo ka tirsan wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa ku howlan soo saarka tallaal lagaga hortago fayraska corona ee faraha xun ku haya caalamka, kuwaasoo ku howlgelaya macadka baaritaanada ee Walter ee gobolka Maryland, iyadoo cahdigan aynu ku jirnaan uu yahay cahdigii fayraska. hawsha la wadaana ay tahay farsamaynta tallaal lagu waajaho oo ay gacanta ku hayaan howladeennada wasaaradda difaaca ee Mareykanka u qaabilsan la dagaalanka cudurrada faafa. shaqadoodaasina qayb ka tahay sii ballaadhinta cududda difaaca jidheed ee xilliyada colaadda iyo nabadda. Dr. Kevin Morgard oo ah madaxa qaybta cudurrada faafa ee macadka caafimaadka militariga ee Walter oo ah macad dhanka daaweynta biologiga ayaa waxa uu ka hadlay rajada laga qabo tallaal loo helo fayraska corona iyo muddada ay suuragalka tahay inay qaadato farsamayntiisu. Dictorku waxa uu sheegay in fayraskani yahay mid ku cusub iyaga oo aanay hore u waajihin xilligii la daaha qaadayna laga joogo muddo 3 bilood oo keliya. diyaarinta tallaal loo helaana uu qaadan doono muddo dheer oo ilaa 7 sannadood ku siman. waxaana uu dictorku intaa raaciyay inay adag tahay in sanad iyo 2 gudahood lagu sameeyo tallaalka loo baahan yahay oo muddadaasi ay tahay mid aad ugu gaaban hawsha loo baahan yahay in la qabto iyo weliba maraaxilka kala dambeeya ee ay marayso arrinta farsamaynta tallaal. fayraska corona oo waxyeeleeya habdhiska neefsashada ee qofka bani'aadamka burburiyana unugyada difaaca jidhka ayaa haatan waxa uu gaadhay oo ku dhacay ilaa nus milyan ka tirsan dadweynaha dalka Mareykanka. Dr. Gordon oo isna ka tirsan macadka dhanka biologiga ee ay leeyihiin wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Mareykanku waxa uu ku sifeeyay cudurkan inuu la mid yahay dagaaladii la isku qaadi jiray qarniyadii dhexe ee taariikhda miilaadiga, isagoo tallaalka ay ku tala jiraan diyaarintiisana ku tilmaamay mid loogu talagelayo dhammaan fayrasyada mustaqbalka iman kara ee la bah noqda fayraska corona. waana xilli uu fayraskaasi bartiisii ugu xumayd marinayo dalka Mareykanka oo cabsi kalena laga qabo soo dhawaanshaha dhammaadka xilligii bandowga ee dowladdu saartay dhaqdhaqaaqa dadweynaha, taasoo noqotay dhibaatada ugu weyn ee ay xukuumadaha dalalka waaweyn waajahayaan xilligan, iyadoo laga cabsi qabo in qaaditaanka xayiraadda dadweyne ay kiciso mawjado cusub oo faafitaanka fayraskaasa. madaxweyne Donald Trump ayaa ku sifeeyay fasixitaanka dhaqaale abuurka Mareykanka oo uu la jeedo qaaditaanka xayiraadda dadweyne ee dalkiisu inay noqon karto go'aankiisii ugu adkaa ee uu weligii qaato, iyadoo xilligan nus milyanka qof ee Mareykanka ee fayraskaasi ku dhacay iyo tirada dhimashada ee xaddaafka noqotay ay ka dhigayso waxyeelada uu corona u geystay Mareykanka mid aanu u geysan dal kale oo caalamka ku yaala, isagoo fayraskaasi uu habeenkii iyo maalinnimadii Sabtida oo keliya ku dilay dalka Mareykanka in ka badan 2,000 oo qof. digniino kala duwan ayaa loo dirayaa madaxweynaha Mareykanka kuwaasoo ku saabsan inaanu ku degdegin qaaditaanka xayiraadda dhaqdhaqaaqa dadweynaha maadaama ay suuragal tahay inuu uga sii daro xaaladda dhanka faafitaanka cudurka ee haatan jirta. waana xilli ay dalalka qaaradda Yurub iska ilaalinayaan inay ku degdegaan qaaditaanka badowga caamka ee dalalkooda saaran, waxaana ay aaminsan yihiin in ka gudbitaankooda kanaalku ay weli waqti dheeraada u baahan tahay.
weliba xilligan oo tirada dadka maalin walba gudaha dalalka reer yurub ugu dhimanaya cudurkaasi ay ka yar tahay sidii hore. waxaana jirtay inay talyaaniguna jimcihii ku dhawaaqeen cusboonaysiinta xilligii bandowga. wadamada kale ee Faransiiska, Jarmalka iyo Isbaynna u baahan yihiin ilaa 2 toddobaad oo kale si ay u qiimeeyaan marxaladda xilliga la taagan yahay una qaataan go'aan ama ay ku khafiifinayaan xayiraadda dhaqdhaqaaqa dadweynaha ama ku sii kordhinayaan wakhtiga ay sii soconayso xayiraaddu. dadweynaha reer Suudaan ayaa si voluntary waxa ay si wada jir u samaysanayaan maadooyinka ka hortagga u ah faafitaanka fayraska corona, sida kuwa gacmaha lagu maydho ee dili kara fayraskaasi inta aanu gelin jidhka qofka bani'aadamka. qorshahan oo ah mid isxilqaan ah ayaa dhinacyada bulshada Suudaan waxay ka qayb qaadanayaan olole heer qaran oo isku tashi ah si ay u waajahaan fayraska ay la tabaalaysan yihiin dalalkii ugu waaweynaa caalamku, iyagoo bahda caafimaadka ee magaalada caasimadda ee Khartoum oo taageersanaysa qaybaha kale ee bulshadu ay muddo kooban gudaheed ku diyaariyeen 100 kun oo maadooyinka nadaafadda ka qayb qaata oo qiimahoodu kor uga kacay caalamka markii uu si xun ugu faafay cudurka corona. ololaha iskaa wuxuu qabsadaa ee ay qaybaha bulshada reer Suudaan ku hawlan yihiin waxay ujeedadiisu tahay in gobolada iyo degmooyinka dalka lagu qaybiyo 10 milyan oo ah maadooyinka ka hortagaanta loogu isticmaalo fayraska corona. khatarta maalinba taxigtaysa soo taraysa ee faafitaanka fayraska corona ee guud ahaan caalamka ayaa ku dhalisay dadweynaha reer Suudaan inay ku tashadaan farsamooyin maxalli ah oo ay dalkooda gudihiisa ka soo saaraan dhammaan waxyaabaha ay kari karaan ee loo adeegsan karo hakinta faafitaanka fayraskaasi. fanaaniinta waaweyn ee dalkaasi qaarkood ayaa ka qayb qaadanaya hawshan oo sidoo kale ay qayb ka tahay diyaarinta qoraallo iyo halkudhegyo wacyigelineed oo tilmaamaya qaabka looga fogaan karo fiditaanka fayraskaasi, iyadoo si bilaasha loogu qaybinayo dadweynaha ku dhaqan gobolada dalkaasi ka kooban yahay, weliba diiradda la saarayo dadka aanay gaadhi karin wacyigelinta heer caalami ee warbaahintu sii deynayso. qaybta saddexaad ee hawshan voluntary-ga ahi waa si diyaarinta hoolalkii iyo meelihii kale ee dadka bukaanka ah la dhigi lahaa haddiiba ay gudaha Suudaan ka dhalato xaalad degdega oo fayraska la xidhiidha. sida ay caddaynayso warbixinta ay sida wadajirka u soo saareen jaamacadda John Hopkins ee dalka Maraykanka iyo xarunta xakamaynta cudurrada faafa ee Afrika COVID-19. ilaa sabtidii shalay iyo wixii ka horreeyay tirada dadweynaha reer Suudaan ee uu ku dhacay fayraska corona waxa ay maraysay 17 qof, iyadoo guud ahaan qaaradda Afrikana tirada dadweynaha uu haleelay fayraskaasi ay gaadhsiisan tahay 13 kun oo qof, tirada oo 700 oo ka midihina ay u dhinteen, isagoo fayraskuna isaga tallaabay oo gaadhay guud ahaan dalalka qaaradda marka laga reebo 2 wadan ee Lesotho iyo Comoros. waana xilli ay soo baxayaan macluumaad ku saabsan inay Shiinuhu qaab cunsurinimo ula dhaqmeen dadweynihii Afrikaanka ahaa ee uu iyagoo Shiinaha ku sugan uu cudurka corona ku dhacay. macluumaadkan waa ay sabtidii baahisay warbaahinta gudaha Afrika ka soo baxda badankeedu waxaa lagu sheegay inay Shiinuhu aanay sidii la rabay ee ay dadkooduba u daaweynayeen aanay u daaweynin dad reer Nigeria oo markii xanuunku ku dhacay ku sugnaa magaalada Guangzhou ee dalkaasi Shiinaha. dowladda Nigeria ayaa cabashadeeda arrintaa ku saabsan u gudbisay safiirka Shiinaha ee magaalada Lagos, iyadoo baarlamaanka Nigeria culays ku saarayo xukuumadda inay qaado tallaabo ay kaga jawaabayso falalka midab kala sooca lagu sheegay ee lagu eedeynayo bahda caafimaadka ee waddanka Shiinaha. tallaabo kale oo taa la mid ah oo ay Afrika ku muujinayso cabashada ay arrintaa ugaga qabto dowladda Shiinaha ayaa gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muuse Faqi Maxamed waxa uu sabtidii xafiiskiisa magaalada Addis Ababa ugu yeeray safiirka Shiinaha u qaabilsan midowga Afrika Mr. Liu Yuxi. gudoomiyaha ururka midowga Afrika ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay inuu safiirka Shiinayska ah u muujiyay walwalka ballaaran ee la xiriira eedeymaha ah inuu si xun loola dhaqmay dadka Afrikaanka ah ee ku dhaqan magaalada Guangzhou, ayna ka wada hadleen tallaabooyin degdeg ah oo lagu saxayo khaladka iyadoo laga duulayo xiriirka wanaagsan ee Afrika iyo Shiinaha. magaalada Beijing afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Shiinaha ayaa ku adkaystay in xiriirka dalkiisu la leeyahay qaaradda Afrika uu ku sii adkaaday marxaladan caafimaad darro ee lagu jiro. afhayeenka Mr. Shaw Lijian waxa uu sheegay in Shiinaha iyo wadamada Afrika ay u midaysan yihiin sidii hore ka badan, dhinacyada walaalaha ahina ay wax kala tirsan karaan xilliyada adag, isagoo intaa ku daray in xilligii daaweynta
ay dhammaan dadka ajaanibka ula dhaqmayeen si la mida sida ay ula dhaqmayeen dadka Shiinayska, isagoo afhayeenka Shiinayska ahi diiday in dalkiisu ku dhaqaaqay wax midab kala sooca oo kala duwanaanshaha daaweynta bukaanka la xidhiidha.